magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame takhasuskayga oo ahaa shahaadada koowaad waxaan ku qaatay sharciga oo aan ka qaatay kulliyadda qaanuunka ee Soomaaliya tayada takhasuska ah oo masterskana waxaan ka qaatay Mortis Law oo Ohio State ku taala oo ahaa constitutional governance dawladnimada iyo xiriirka ka dhaxeeya waxa la qorto markii horena intaan dalku burburina waxaan ka soo shaqeyn jiray wasaaradda beeraha gaar ahaan mashruucii horumarinta beeraha ee gobolada waqooyi oo la oran jiray North West Agricultural Development saldhigiisuna uu ahaa inuu xanaaneeyo waxna ka qabto kubciyo ilaaliyo waxa la yiraahdo ciidda iyo biyaha soil water and conservation iyo in la horumariyo beeraha yaryarka ah oo ku baxa waraabka horticulture la yiraahdo projectigaasu wuxuu ka shaqeynayay gobolada waqooyi galbeed oo Hargeysa Boorame mararka qaar koodna wuxuu gaari jiray xiriir laha Ceregaabo project is very successful aha wuxuuna u ahaa iyada oo la ilaalinayo roobku markuu doo dhulku wuxuu leeyahay daadag buu leeyahay oo ay ka dhashaan wabiyada yani togag waaweyn biyaha qaada biyuhu waxay la tagaan marka inta badan ciidii kore oo nafaqada lahayd geedka marka la abuuray inta badan culayska wuxuu ku dhacaa ilaa dhowrka sentimitir oo u koreyso ciida ah ciidaas oo nafaqada lahayd marka tagaysay marka ciidaas aan ku dadaali jiray inaan u sameeyno wax la yiraahdo contours oo hakad geliya socodka biyaha in xawliga biyuhu ay roobka dalkeenu quble ma aha roob quble ah oo tartiib u da'man roob hal saac gudood laga yaabo intaasoo millimeter inuu sii daayo marka in la hakiyo oo loo ogolaado biyaha inay dhulka galaan ka bacdina beeraleydu ay ka faa'iideysato halkaas baan anigu qaybta beeraha kaga jira oo xagga managementiga aqoon-yahanada shirkaan qabsaday runtii rajo weyn bay igelisay in dadkeenu leeyahay aqoon-yahano biyaha beeraha climate-ka engineering-ka oo runtii very superb guddigoodba ay ahaayeen shahaadooyin waaweyn iyo takhasusyo waaweyn kale adduunkuna ka faa'iideysto dalkan Mareykanka dad ka shaqeeya European Union-ka dad ka shaqeeya Canada dad ka shaqeeya oo xilal waaweyn ka gartay presentation-ka ay soo bandhigeen iyo slides-ka ay tuseenna waxay muujisay aqoonta dheer ay u leeyihiin dalkeena waxaan ku talin lahaa in ummadeenu aynu dalkeena aamino inaynu qabiil iyo qoqob iyo xin dalkeena ayna gelin u soo jeensana tacab dhulkeenu waa buuxa beeraheeni iyo wabiyadeeni iyo kalluunkeeni iyo dhulkeena inaynu soo jeensano sidii aynu ugu soo jeensano wax ka soo saaray waana ogtiina waxna wax ka soo saarana hadda koor dhulkeenu waa qani salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh